maxamed xirsi salaan waa naanays carabeyna waa naanays aabihii lahaa sidaasaa la isugu qabtay markaa salaan carabi isaga ma ahayn isaga salaan unbuu ahaa carabeyna waa naanays aabihii lahaa marka waxaa la qiyaasaa inuu dhashay 1850 sida aan taariikhda markii aan ururinayay helay nin kaloo carab ah oo isaguna 1964 wax ka qoray taariikhda salaana xiliyadaas isaguna ku sheegaya inuu dhashay yaraantiisii wuxuu ku barbaaray deegaankan tog dheer agagaarkeeda beer waxbarasho halkaas ka galay malcamad quraana meelahaas intuu dhalinyarnimada ku guursaday gabayga waa meeluhu ka bilaabay markii dambena wuxuu noqday nin dhul maraho cadan iyo maraakiibta raaco oo East Africa iyo Carabaha iyo Europe iyo meelaha u goosha baayac mushtar buu mar noqday wuxuu ahaa nin luqado badan ku hadla sida Ingiriisida, Carabida, Sawaaxiliga, Hindiga, Soomaaliga, marmar lafteed Xabashiga wuxuu ahaa nin xaqiiqatan dadkii taariikhdiisa ka sheekeeyay ee aad ugu amaaneen xagga sharafta iyo raganimada iyo deeqda iyo waxyaabaha badan ee Soomaalidu inta badan wax ku qiimayso dhowr dumar oo guursaday cawo dhooble ayaa u caansan iyadaana wax u dhashay 4 wiil iyo 4 gabdhood ayay u dhashay guud markaas waxaan uga dan leeyahay cidii ka boganaysa waxay taariikhdii soo dhamay ku dhanta iyo gabayadiiba buugay ku dhanyihiin tani waa uun guud mar aynu isleenahay cidda buugga haleeli weyda ama waqti u weyda inay halkan ka daalacato iyana intaas baynu wuxuu ahaa nin cibaado badan oo sidoo uu sheegay Cali Xaaji Xasan Kadoon oo soo gaaray salaan wuxuu sheegay inuu ahaa nin cibaado badan oo habeenkii oo dhan salaatu leelka ku soo jeeda xagga deeqda in badan oo wanaaga bili aadmiga waa lagu sheegay salaan intaas baynu marka gogol dhig taariikhdiisa ka soo qaadan karayna ninka la yiraahdo salaan sida aan ku hayo wardhagoodka meelo badan ayuu wax ka yiri waxaan ugu jecelahay inaan ugu horeysiiyo xagga nabadda waayo nabad marka la helo ayaa wax waliba yimaadaan marka ninkaasi sida uu uga digi jiray nabad la'aanta colaada abaabulka iyo haddii ay kicinta ummadda ee la isku diro aad iyo aad buu uga digi jiray waana hawl maanta iyo maalin walba taagan ilaa qaabiil iyo haabiil bay ku sinayd hadda waa socotaa mar walbana mid wax kicinaya iyo mid wax dejinaya ayaa ummaddu lahayd yeelana doontaa marka waxaan jecelahay aniga oo aan soo wada koobi karin ninkaasi meelihii uu hoga tusaaleeyay ee ka gabiyay ee hal abuurkiisa ku yartaa taabtay aniga oo jecel inayna faalo badan gelina u daadegno nuxurka barnaamijkeena waxaan jecelahay bal hadda in aynu yarahe milicsano ama ku bilowno suugaantiisii uu ka yiri xagga nabadda waxaan jecelahay iyadoo ay jireen gabay iyo geeraar labadaba uu ku kala celinayay bulshada qaybo ka mid ah oo lahaa warisdaaya bal hadda geeraar uu tiriyey oo ay ku jireen halkudhigyada wartolow colka jooja ama gundhigiisu ahaa ama dhexyaalkiisu bal hadda geeraarkaa iyo siduu ku yimi iyo isagiiba ku soo dhawow cali mar kale waad mahadsan tahay geeraarkaas oo magacana buuggaba aanu uga qaadanay tolow colka jooja war tolow colka jooja aanu buugga ugu magac darayba waa suugaantiisa ama maansooyinkiisa caan baxay waxaanu ku kala celinayay laba reer oo colaadi dhex martay daahir faarax iyo axmed faarax laba reer oo la yiraahdo oo walaala ah ayaa colaadi dhex martay marka dhowr goobood oo hore yaa dhacay sida beeyo golamidig galool madoobe goobo saasaba dhacay dabeetana maalintii dambe labadii qolo ballameeno waxay yiraahdeen war dhowr goobood oo hore inuu isfarasaaree oo marba qola bursatay maanta goob aynu ku kala sad qaadayno oo qolo un la muquuniyo aanu ballanno halkaas shaydaanku abaabul dabeetana way ballameeno mudday qabsadeen labadii qoloba waa hub urursadeen dadkii kale dee deegaanka ka ag dhawaaba arrintii ogaaday oo yiri warde labada reer aan dhex galno dabeetana rag guddiya
yaa is-abaabulay ninkii xaaji xasan fiqi ayaa ka ahaa hormuud guddidah xaaji xasan fiqi waa sheekh bashiir awowgii baasho shabeelaha ka mid ahaayo rag badan baa ka mid ahaa guddida ragga qaar waxay dhahaan salaan guddida marka hore kuma jirine markii guddidii soo dareertay buu warka maqlay oo u yimi ragna waxay dhahdaan marka horeba mee guddidu ka mid aha si kastaba ha ahaatee salaan markii guddidii ka caal weyday arrintii oo sidaan maqlay xaaji xasan fiqina yidhi war malaha dad meesha ku dhimanaya baynu isleenahay badbaadiya ilaahay aan u toobad keenno markuu labadii qoleba ka caal waayay ayaa salaan yidhi shiikh afa yaqaaniin ma kula hadlaa haa buu yidhi oo haddaad maanta labadaa qole ku kala dareeriso haa xasanaad iyo ajar badan yaad helaysaa markaa faras cad buu fuulay oo marba qolo iyuu u tegey geeraarka wuxuu adeegsanayaa colaadda iyo cirib xumadeeda dadkii ay soo martaiyo goobihii hore ay dhacay wixii laga dhaxlay haa rag badan oo salaan reerkiisa ka maqan oo labada dhinacba ku maqan godobtoodii uu leeyahay haddaa maanta idinku isfara saartaan ana dhinacuun baan ka soo safanaya dhinacyo sidaasa ayuu taataabanaya wuxuu yihi sidii awr calaasoobay oo caawin dayrta ku qooqay oo dhibidii ku cilaantay oo mid kale u caranaya ha labadiina tan cuure isu cooba ridaya cod yar baan u lahaa maalintii cumar daahir isu laayay cayaartiiyo nin caloolo cadjoogo maygaag ciidan warqaatoo colkii beeye oga waa cibaaro qabaayo balaayuu curufkeeda iyo ciribteeda dambeetiyo cunsurteeda yaqaano caqiibuu taliyaaye kala cawdi bilaystoo waartolow colka jooja nin habeena casheeye inuu caafiyadiisa cabbaar meel la fadhiisto cindigaanay gelayno cimrigeedba lawaah ceeryaanaan hadh lahayn iyo ciruunba isugu toosto waa calaamad ibleysi kala cawdi bilaystoo waartolow colka jooja carabkaan ku hadlaayo nin caleentii caddaatiyo calli reera la yaallo iscufaayo golaayo cararaayo hadhow iyo caamadaan garanayn kala cawdi bilaystoo waartolow colka jooja nin kaleeta carrow cuudkiisii iska doonay cad baan kuu damqanayn anse cashiiro sokay iyo cid baan kuugu xigaa inaan caawa ku dayshana calooshaan qabanayn haddii faarax colloobo anna cuud dhaqan maayo cidluunba iga dambaysa kala cawdi bilaystoo waartolow colka jooja haddii aa iscuntaanna idin caabudan mayno cidna waysu xigtaan ciilla waysu qabtaan haddii aa iscuntaanna idin caabudan mayno shantii ceeriga tiiliyo curadkii habartay iyo califiin ma ilaawin callana waa is ogeyn jaamicii calmanaaye curuf xaajo nin qaadiyo codkarnoogu dambeeyiyo rab jaambaaba cayaariyo caada dhaaf iyo beeniyo caynkii aa ku disheenoo caday loo jabinin waa intaan mid ku ciiriyo ka kaleeta u ciidmi dabadeed ciddidaydu calooshay ku jabtaa anna waxba maan kordhin dee khasaarun baan sii kordhiy kala cawdi bilaystoo waartolow colka jooja intiibaa cantarteenoo cuukada aydun marteenoo maydkiini camiraaye intiibaa cantarteenoo cuukada aydun marteenoo cash ciridii gubankiiye cashigu reerka ku laayiyo maydkiini camiraaye candhadheerta dhurwaa'iyo ciidda haadu ku jiidiyo cuqdadkii ka baxdeenoo cosabkii balambaaliyo caleentii karamaaniyo dhulka meesha curbooniyo cayn baa soo gudhsateenoo cambartii geela dhalaysiyo adhaa ceegan guryaayo caddiintaa wadataan iyo codcodkaa sidataan iyo caanihiiba idin cudhaayo oo carfigaa nabaddaa leh kala cawdi bilaysta oo waartolow colka jooja ma jeerteen cambarkii narsaduu camiraayey cashuurtii hawiyaa calankii laga qaad reer cismaan maxamuud iyo ciise riyoole cabdallii yaryaraa cigallii ka dhignaa cumar way isku itaal kala cawdi bilaysto colaad baa amarkaa leh kala cawdi bilaysto waartolow colka jooja garaad faarax culquul iyo carab aadmi habaariyo cuqubooyin ku biiriyo cawri bay la heleenoo cidlo weeye nugaaliyo cawskeedii lama daaqo carradaynu degaynayna inuu cawlku miroodiyo caynkaasaa ku wadaane kala cawdi bilaysto oo waartolow colka jooja
marka ciisku rumoobe curar weyne dhintaane cirshigaa tala gaadhe aan la iscanaanan karayniyo caqdad baa ku wadaane casho dhow waxa joogiyo aan cawaaqibka eegna bu aan cawaaqibka eegna waayahay waxaan filayaa dee kaasi waa inagaga filan yahay hal inta aynu nabadda ka xusayno gabay kalaa jiro ahaa duugeeda belo waa helaa ninu dadaalaaye niman yahow tolnima waa dugsiga dunida jeedaasha halkaa aan kaga gudubno isagana waynu koobanaynaa waxaa jirtay yuusufow salaan si guud oo qabiila iyo si qudh ahba waxbuu ugu sheegi jiray waxa igu maqaalo ah oo aan wardhagoodka ku helay dee mar haddaanan akhrina ku arag waa wixii aan ku helaaba waa wardhagood waxaa jiray inan kale de waa kan le ninkii xoogaa isugu toostaaba waa kibraayo inuu eeyar fadhiisto laga waa arrinkaasi arrin laaxin laga goynayo ma aha in badan baynu garanaynaa nin waliba markuu maalmaqadeeyey ama casheeyey ya waa yahay waa tale ilaha waxaan kuu sheegaya haddaba gabay kalaa jiray oo isaguna hoga tuskaa ahaa oo aan filayo inuu inan uu adeer u yahay ama uu dee kollay qaraabadiisii ka mid ahoo yarahe xoogaa gafafa geystay uu wax ugu sheegayey oo haddii eebbe idankeeda leeyahay gabaygaana waxaa igu maqaalaa adaa ii sixi doona sababa nusuulkiisa cankabuud baa la yidhaahdaa bal oo wax badan isagana kaga warramay bal hadda kaana inoo yar raaci maadaama ay hoga tusaalihii weli aynu ku jirro gabaygaasina waa jiraayo cankabuud waa gabay runtii aada iyo aad u qaaliyahoo wuxuu aada uga warramayaa aakhiro iyo qiyaamaha iyo xisaabta waxyaabaha dambe ayuu ka warramaya sababtu ku yimi waxay ahayd ninkan la odhan jiray cabdullaahi baashe dhammaantood ba ilaahay ha u naxariiste oo nin aftahan oo gabyaaya ahaa yaa cadan tegi ha dee bulshadeenuna dhaqan bay leedahay oo qofku meerku meel yimaado waa la soo dhaweeyaayo waa la sooriyeeyaayo waa la maamuusaa cabdillaahi malaa sidii uu filayey ayaa wax u dhici waaye rag badan oo malaha uu tirsanayeyna waa ka soo horka wareegi waaye dabeedna wuu gebi ha gabaygiibuu niman habla qabo oo xidid ah ku soo dacal dabada meela kaga soo dara wuxuu yidhi geedkii aanu goynaaba waa gawlaliya jiice ilaah baa gacmaa noogu xidhay maydhax gumareede geesiga ismaaciila iyo godane mooyaane waa guur xumaysteen hablihii geella dabadeeda bu intii wuxuu dhintay mahay waa intii kale rabshad weyn buu keenay xaaji ismaaciil cawad iyo geella mire labadaa nin mooyaane wuxuu yihi ragga kale wax ka soo qaad ma leh hadeerba dee ninka qaadka ku qaada mooyaane wixii kale wax ka soo qaad ma leh dabeetana raggii kale gabaygu dee ku dhaca ee hablaa qabay yaa iyagoo erga ah salaan u tegi waxay yidhahdeen de arrintan arrin dhaqana may ahayn ragga hablaa qaba in loo gabyo de waxaanu doonaynaa salaan oo arrintaa ninkaa cabdullaahi meel ka dhac baanu ka tirsanaynaa inaad wax ka qabato cabdullaahi buu u yeedho ku yihi war cabdullaahi baashow dee ergaa ii timi oo waa lagaa cabanayaa gabay kaloo xaal marina mari cabdullaahi waa u noqday gabaygii laakiin taladii salaan ma yeelini kiisii horun buu sii adkeeyey oo inuu gar ku taagan yahay ayuu ka dhigay wuxuu ihi haddii aanan gaali iyo islaam eedba cid u geysan oo aan seedigay wuxuu galo giirka ka caddeeyo ma la guban haddaan geella miro sheegay gacantiisa bu anigu haddii aan geella un sheegay de maa markaas salaan bay la gudboonaatay inuu kolka wax yidhaahdo inuu meesha soo galo oo dee gabyo war ii wad hadalka halkay ku jirtaa waa halkaas gabay laakiin ka culus wixii laysku hayay ayuu mariyey oo ad iyo ad uga warramaya geerida iyo qiyaamaha iyo xisaabta wuxuu ihi cabdullaahi baashow cataaqay gabay caraadkiisi calqas weeye jeeraa waktigan calaalinaysaani carabkayga waataan ka jaray codashadiisii cibaadaysa mooye adduun caashaqii dhigaye sidan cadadka bilaha u tirsaday waan cabsanayaae cishahaan hurdada fiiriyaa caamintaan jiraye calli yahow ciradu waa dhabtii caamadan garani calaamooyinkii oday lahaa caasha wadisaariyi carcar waxaan lahaan jiray haddaan ciirayoo dhacaye casho noolba waxaan fiiriyaa curufyadaydii calool qulubtay waa yaabasaan cudur la taahayne
raggii aanu isku ciidamisahayn caadna laga waayi cidla yuurur bay dilay sidii cawsha dabadeede naf cunquurka loo yimi rabbaa caawimow garanne cadceedda casar joogtaan ahayoo ciiri dabadeede tixdaase waxaan cashuuraba haddaan caynka ka higaadsho aniga cayda iguma baxdi iyo ceebta dabadeede caradaba mid laga naadiyo caana baan ahaye dhallinyaro culmoogaa tashigu cadho ku reebaaye hadba tolanu ceesh milixna haad nagu candhaysaaye cabaar gibina meeluma fadhiidid cis iyo maamuuse cuqle miduu u baxay baa tahaan caabudayna xade cimrigiisa nimaan laasanayn looma caal helo rabbaa cudur ku rida duul hadday caamilaan kibiri caad iyo samuud iyo kancaan cadowyadii diinta cantar binu shidaad iyo kuwii coofka kor u taagay calaaqaa la sudhay reer cimaad cadho daraaddeede casho keliya baa reer fircoon wiishla caariday cirshigaa nabruud lagaga riday col aan u dhaadayni caqlow dhime ee cooj binulcunuuq ciidda lagu aasiye cuqdad eebbaheen gelay wuxuu cudud lahaa xooge cabdulle xasanna waxaa soo casilay caarshe iyo giibe cirkaa lagaga soo degay markay carays u taageene raggii dunida curiye gudhsaday laga carrowsiye cadad male rijaaladan intay calal ku duubeene ay ciidan meel loo qodqoday kaga caraabeene aan camalkii mooye qabriga cid uga yeedhi cankabuudka caaradu xidhee lagu cayaarayo iyo wiil cartiisii qaboo kibir la ceeryoom cindallaahi waa siman yihiin waana laba cayn cuqlal waalideynka iyo kufriga dadku waa carabi ama waa cajabi caamo iyo khaas cuqlal waalideynka iyo kufrigan wada cashaynaya in caddaan khalqiga loo xukumi colodku waa mog haddiise caarifiinta iyo niraga laga cisoonayo cashadii rasuulkii dhintay ee cudurka loo keenay calayhi salaatu wasalaam cilmi kama warramin waa baryoo laga ciqaabnaa nin cabuuso ogi eebba wow toobad celiyaay cama nin akhristaana jeer dambe ku cimro qaataaye haddii ciise soo dego nasrigu waa cadceed subax ciyoomba haatan la isugu dhawaaq calankii suurkiiye carcaraafka maantay tahee caadil la hor joogo maantii xaq lama caasiye la carba miisaanka ninba culuq ku laasimay markii laga cashuuraayo nin kastoo caniidaba markay tala ku ceeriyoonto marka dhididka cagaha ka tegay cunaha kuu gaadho maantaan cashiiriya lahayn cuud la bixinaayo ifka nimaad u cabataad marun ciidan ka heshaaye camalkaaga mooye halkaan hiil casaba joogin iyagoo cashaan qaba intuu caraqna maansheeyey alif maata cuddu caam haddaan cidi jawaab siinin shaydaanka laga cawdsaday carara yaasiinka iyo wax cadaabka lagu waariyaa gaal cadiigsadaye rasuulkii carshiga loo ballaqay carajigii leylka isagaa cibaadada anfaca caadilka hortiiye ciskii maxamed loo soo rogay inu cuskan doonaaye nin ciroobay oo coomiro kuu cawdaan ahaye cadaabkii allow naga xorey caadil baa tahay hey waan garanay waxa weeye had iyo jeer qofku markuu dee dhaga adkaadee caniid noqdee wax maqli waayo waxa la tusaa raggii hore ee sidaa afka u taagi jiray halkay ku dambeeyeen xagga aakhiraha loo kaxayaa marka horta waxa weeye tii hawaalo waranka ama dadka iyo qud iyo qabiil mid kastaba ha ahaatee wax sheegiina intaasaynu ku dhaafaynaa yuusuf dadku ma wada gaboobin sideena xoogaa haddii dee dhallinyaraa jirta odayguna maruu xagga jacaylkaynu ugu yar celinayna ilaa bahasha maaha midun dad waaweyn loogu talagala bal hadda yarahe xoogaa waxaynu u yar milicsanaynaa dhinaca inagu jacayl oran kari mayno oo de waynu yar hadeerto berigeenii lama soo qaadqaadi jirine waxaa la odhan jiray guur iyo gabadh buu doonay iyo waxaan jecelahay odaygu beri baa igu maqaalaa inuu inan dee haddii dhigiisa ahayd oo inaabtidii ahayd oo aada u yar dee aada uga helay oo u yar doonay dabadeedna markii la arkay odaygu inuu meelu ka soo noqdo aanu joogin ayaa shuruudihii gabadha lagu siinayey lagu yar adkeeyey oo nimanka abtiyaashii dee dadku dhaqan buu lahaayo intii hooyadeed laga bixiyey oo aad keento mooyaane iyo haddii eebba idankeeda leeyahay qorayga aabbaha adoo ku soo dara mooyaane shuruudo ad adag oo lagu eegayo ama insurance ah oo lagu baarayo in ninka ay ka dhab tahay arrinku baa la samayn jiray wardhagoodka waxaan ku hayaa in odayga lagu yidhi faraska abtigaa ee magacaa le adoo keena mooyaane inaan adnaayaa odhan bay intaa naga tahay bal markaa doonitaankii faraska iyo abtigiisii uu u tegey iyo haddii eebba idankeeda leeyahay wagan xidhe iyo waxa la odhan jiray adaa ii sixi doona bal hadda arrinkaana yar taabo halkaa dee bulsho badan baa kuwa caynkaasi aada u dhegaysanaye kusoo dhawow horta calow waa jirtay oo
jacaylku kama madhnayn waa kii lahaa shaalkii magaalada qoftii aad sharafka moodeysay shookeed qalbigu way ruxmayahay shaxeexina qaar baa ku yihi yar dabcayna yar baajiyaano ay meesha yar nacsiyaan oo si kale wax ugu dhigaan markaasuu leeyahay shookeed qalbigu way ruxmayahay shaxeexina hay celinina meel baa ku socdaa waa nin meel u cadday meele ka madow markaa gabadha markii uu doonay waxaa la odhan jiray cawo dhooble dhulbahantoo reer hagara bay ahayd dabadeedna yarad fiican buu geeyey markuu yaradkii geeyey baa la yidhi odaygii inanta dhalay ee dhooble uu yihi faraska abtigaayo wagan xile soo raaci yaradka waa mid sheegade waa reerkaa abtigii yahayna oo isla uun dhulbahanto ah laakiin iyagu jilib kale aho bahararsamo ah iyo reerkan unanta ka doonayaana waa col goobo aada u badan baa dhex maray oo diilimbaas goobta la yahda u dambeysay laba reeroo colana dee si faras loogu kala qaada farduna waxay ahaayeen tignikay markaa ahaayeen oo nin walba iyo faraskiisa dee waa la yaqaanaa salaan dee waa nin guur ku jiro oo jacayl hayaaye arrintiibuu sidhi ka biyo gaadho xaggii abtigii ayuu kacay abtigii buu yimi oo xuseen maxamed cumar xuseen johorod yaa abtigii la odhan jiray arrintii buu uga warramay dabeedna abtigii wuxuu ku yihi abti dee waa isku leenahay oo faras iyo wax ka badanba waa isku leenahay laakiin reerkaa inanta aad ka doontay in colaadina dhex taalo soo ma ogid abti waa jirtaa bu i colaadaasi laakin dee halkaasaa lai dhaafi waayo arrintii kaga xidhanta waxaa laga sheegay odagii inuu yihi abti faraskayga lai soo fuuli maayo wixii kale aad weydiinayso diyaar baanu ah ragga qaar waxay weriyaan odaygu markii dambe faraska waa ogolaadaye tolkii guud ayaa diiday sheekada inay socotaba akhirkii waxay gaadhay garaadkii markaa sandalada hayay oo go-aamiyey inta colaadaasi taagan tahay inaan faras la bixin arrintii arrin qabiil isku raacay inaan faraskaa la bixin yay noqota faraskaasaana dee gabadha ku xidhan taha arrintu waa adag tahay labadii dhinacba waa ka adag tahay dabadeetana waxay noqotay dee salaan inuu ka ambabaxo oo faraskii aanu helaynin dabeedna shirkiyo iyadoo shirkoodii abtiyaashii ayuu yimi tixdanu markaa mariyey isagoo weli abtigii la hadlaya inaan dee xoolaha wad jiro oo abaari jirto oo farasku si unu baxayo oo ayuu ka hadlaya neef xoola anu yahay ayuu ka hadlaya wuxuu yihi wanaag male xuseenow adduun la isku waala haddaad farasku inuu weyn yahay iyo wehel dad moodeyso galab baa waraabuhu dilaa ama la waaya waja cudurra waysaga dhintaa oo wareen malag weeraaragimina nin bari wiifsadaa galab wacdi sabana xoolaha mar buu weyd ku jabiya kobuu yihi galay geedu hadiya ururka waayeelka ugla jeeda lagu toociyuu wadan ugla jeeda lagu toociyuu warasiyoo booday hal bariiqo lagu weeciyuu wadana xima markaasay wuxuushtiiyo cunaanhaada loo waday wadhaaqtan diriireed kobtay weehad ololeyso rag iswada wajiiriyo rogaal waramadoo dhiig leh isagoo wajaqay meel fog buu wagaraad gooyaa markaasuu waraa rag u noqdaa wiiro lalaha waji gacalku way isugu qabtaa shay kastoo wacan haddaan walaxdu gurigeena iman kuma wareersheen wax ku siiya iyo xaggaa igu waraysaaba waa un wadiyahan shay adduun lagu wayiigaa kollaba waari maaye abtuu waris halay racshabu waxay sheegaan odayaasha taariikhda wariya isla galabnimada in qayla soo dhacday dabeedna fardihiiyo halkan dooxada jooga dhalinyaradii ku yaacday isla faraskii wagan xilo oo sow hurda yani dhalinyaraha ku booday oo jeedalkii ugu horreeyey markuu ku kiciyey ayaa faraskii booday oo garka wadna go-a waaba tii uu sheegay dabeetana waxaa la yidhi faraskii wagan xilo halkaasaa meydkiisi yaalla salaan baa la yidhi dee salaan faraskii waad awaadhayo waar ma awaadhin anigu dee waataynu kala sad qaadnaye anigu
waayaha adduunku baan ka warramaye salaan waa soo noqdo dabeetana nin la odhan jiray jaamac liibaan oo ay tol guud ahaayeen ayuu faras la odhan jiray tima yare oo jara ku daaqa oo aada loo ilaaliyo oo sheegan ka kaxaysta faraskaasuu gey sidaasaa arooskiisi iyo hawshiisi ku hagaagtay haddii bayd iyo laba gabayga aan dhaafo kolleyba dee buugga ku wada qoran oo laga helaya maya iyadu inteenan wa iska yar waa raacraacise wixii uu buugga ayaa gabaygu ku dhan yahay oo sida aad sheegtay halkaasaa dee ninkii aada u danaynaya ama lexajecela ka gashaa uu ka eegi doonaa weli kala hari maayo intii aan ugu talagalay dhalinyarada dhegaysigeeda waayo waxa weeye meelahaas oo kale waa meelaha aan bulshada mujtamaceenu u badan yahay 60% baa la yidhahdaa baa dhalinyarada lagu qiyaasaa markaa si ay uga waaya qaataan oo mar hadda wixii rag soo maray ay halkaa ugala sii yar socdaan kala hari maayo waxaan kaloo iyana doonayaa inaad noo raaciso raggu dee marka uu gabdhaha doonayana waddo dheer baa la mari jiray haddeerso malaa email baaba laysu diraayo haddii ciidankeeda leeyahay mid maraykan joogta iyo mid soomaaliya joogtaa laysu meheriyaayo hayo wixiiba .com baa laga soo qaaday marka waxaan kuu sheegayaa waddo dheer baa berigii hore loo mari jiray odaygii caynkaasi ku dhacday ee haddii eebe abtigii u tegey ee jacaylku halkaa la maray islaamihiisii mid ka mid ah ayaa igu maqaalaha oo mar dambe islaantii uu guursaday ahayd inay dekeeye ahayd baan umalaynaya ayaa uu dee seedigiisa ul dheersita oo maqlay dee salaan baa xoolo laga sii kaxaystaa nin odaya dee iska dhiidhiiba bahasha ya inuu kaasi soo dhacay odagoo yarahe dee yar ciil qabo oo faraskii hore iyo intii xoolihii laga mariyey iyo kuwa hore laftooda iyo kuwa dambe mid ay ahaayeen mooye inuu ayaa iyana igu maqaala ah bal hadda waxaan jecelahay innaga oo hagga guurka iyo hablaha dhibtii loo soo mari jiray tusaalaynayna inaad yuusufow gabay lukaansi la odhan jiray oo ninkaa usha dheer iska soo qaatay bal hadda ninkaa iyo odaygu wixii ay kala mareen xilli dambe u gaboobay inaan filayo inayba ahayd bal hadda kaana u raaci dhalinyarta waa jirayoo xaaskiisii labaad bay ahayd oo dekeeye nuur ismaaciil baa la odhan jiray waayeel buu ahaa markuu guursaday siduu gabaygiisa ku sheegay sida igu maqaalaha dekeeye lafteedu inannimo iskumay calfane waa looga horreeyey salaan marka waxaa jira isna gabay kale oo malaa ay marac cabatay oo tiri maxaa dulmiga ee ku falaysaa maad iska kay fasaxdo warqadayda iska kaysiisi yar saluugtay markaana gabay qancin oo iyada kula hadlayay ayaa jiray oo baydadkiisa ay kamid ahaayeen dekeeye dulmaan kugu qabaa waa hal ii darane rag dil waa geya qadafse waa lagu duloobaaye inaad darar xogdala igu dubi waan ku diir garane dabre oday ma laasimo dhow dooxanaa ride ee dadaalkiisu waa mar iyo laba inuu ka duufa gabay saas ahoo duurxul badani ku jiray kaasina waa jiray marka wuxuu waranwarye ku maqlay in lagu soo socdo oo nimankii dekeeye ka dhalata ay soo socdaan oo dekeeye walaalkeed hormuud u yahay oo nin la odhan jiray mire ismaaciil nuur uu ragga wato malaa laguna mire hungurana lagu naanaysi jiray dabadeedna dee salaanoo waayeelahoo reer magaalnimadii iyo tacabkii iyo wixii markaa ka waayeelay oo aan hayntiisa iyo dee aanay fiicnayn ayaa lagu soo jeeda waana laga warqabaa cawo dhooble iyo wixii la isla maray iyo xoolaha xaggaa hore kaga baxay oo dee nin magacloo siimaan oo gabyaayo caana bu ah marka gabaygani nimankaasuu ka horgeynayaayo la hadlayaayo leeya war kolleyba haddaa soo socotaa anigu waxba hakran maaye dee dhaqan baa jire dhibaadii iyo wixii xagga xididka ka iman jiray dee idinkuna faramanaan ha ku imanina wuxuu yihi lukaansi gabay faaraxow laakiin ma lahayne laflafka iyo laqwiga loo tirshiyo jaray lurkiisi iyo la-da xarafka laankiiyo ba'daan loo yar ku ahaaye nin awowgii loox ugu dhigay oo liil gashaan ahaye lecture faranji niman baa akriya lawis iyo beene oo weliba laasimay intay lib isku moodeene ase waxaan u laaqimahayaa miday ku luuqshaane ase waxaan u laaqimahayaa tixay ku luuqshaane mar hadduu lilaahida ka baxo waa lisaan jaban nin 20 buuxsamay iyo adduun waa lagdamayaane haddaan anigu loo fari iqiin haatan lowlabaya nin ciradu lamaanaha dhigtay oo leelyan baan ahaye 62 baan dul mara
waana la hubaaye lafta dhabar laxaadkay dabcay laafyihii gacanta lubigaygu leyl xalay ma ladin laadadiya taahe waa taa laleemada indhaha araggu liitaaye hadday laguhu ciidamin jireen laaste orodkiiyo liiqliiqad baan ah sidii lula dabayleed ma la xiibto geelana hashii lahanta jiilaale ku laabudon shisheeyana ninkii la xabsi moodaaye hadba waxaan la xaadbiday rag baa laasta yaradkii iyo liibaan dhulbahanta iga helay laalufse imoodiye xaqaygaan ku loo faray hadday igu lihiimeene sidaan ugu lalabay wanigaa laayacaysbaday ee labxanse maayo caawana haddaa lisi tidhaahda iminkana diyaar baa lahay haddaa yara doonaysaa nin laqoye tashigu waa ka luma laguna leecaanye lalamaane xadhig loo tidcay yay lugi ka doogtaaye lufan baa ka hadha dawliskii liil samaan jiraye nin laboodi sheegtana samaan laariyaa helaya haddaan luqunta beri taagi jiray liicday adhaxda iyo tolxamiyo ladqaba wow eg tahay inaad lafaysaaye laqantooyo xidhid tii horaan laabta ku hayaaye imikaan larkii weli qaba laqanyadeedii iyo nin yaraan ku loo faray wuxuu lumiyey raacde fardahana libaadsaha iyo dunta yaa ladha weliidkooda rag laacdamaya lool iyo rogaal leexada isgoysay bawdada ma laasimo darmaan leeda fuulih iyo laanjeeridan qabo barbaar ladani waa mooge haddaydan lamaa awr la wadin ama ligood keenin leegleegsadaa waa nebca laanta dheer sidee ee warseedayow ha igu soo lugo-in lahasha waa ceeb waa yahay dee kolley suugaantu nooc kastaba ha ahaatee gaar ahaan gabayada wax badan oo aanad sidooda u odhan karin ayaad isaga ku odhan kartaa meelaha aan aada uga xiisayo ayay ka mid tahay waa yahay waxaan jecelahay anigoo dhinacaana soo yar ururinaya oo maadaama se dadku dhalinyaro u badan yahay bal waayaha iyo hawaalla waranka soo maray rag qaarkii wax ku tusaalaynayna waxaan kusoo koobayaa gabadhii aada ogeyde haddii eeba idankeeda leeyahay fardaha iyo geela iyo wax walba salaan uu si kastaba u kaxeeye uga bixiyey waxa dhacday haddana wa iska xaal adduunay in xoogaa xiditidnimadaasi yar la xangalay markii dambena ay noqotay xitaa seedigiisoo ladqaba ahi wax kastaba ha dhaceen oo ha ka horreeyeene inuu u yimi salaan oo yidhi dee inankeen waxba haddii dhibi ma jirte marka odayga xaggaa dee nugaasha iyo inanlayaal buu ahaayo dee reerkiibuu in badan ka maqnaa sidaan wardhagoodka ku hayo dabadeedna wax kastaba taana ha keeneen hadda ku noqon mayne dabadeedna ninkii seedigii ahaabaa dee ninkiis yidhi ilaa meeshii reerkii waa dayacan yahee doon dabadeedna salaanna warar badan baa la siiyey oo waxa la yidhi dee gabadhii intaad badaha wareegeysay haddii dhoofku ilaa uu iska dhib badan yahay intii aad meelaha ku maqnayd dee malaha waa ka warar baa soo gaaray isagana dabadeedna gabaygaa dee yarahee sidii hadal adag statement adag oo uu odaygii dhisisha qaatay xaggiina inaanu ku noqonayno dee ay reer dhooble hadeer yarahee xoogaa madmadow weyni ku kala dhex jiro uu ku tilmaamayey inantii markii hore jacaylkeedii iyo arrimaheedu halkaa soo mareen bal hadda kaa oo isaguna had iyo jeer waxa la yidhi haddaad qof jeclaanaysana aashaa jeclow nici doontaana mooye haddaad qof nacaysana aashaa nac jeclaan doontaa mooye bal hadda sida waa waxyaabaha riwaayada iyo filmada aynu ku aragnaaye gabagabadii guurkii caynka ahaa bal hadda halkii xididnimadu ku dambeysay gabaygaa tilmaamayana isna inoogu soo gunaanad baabkii caynka ahaa ee xagga jacaylka iyo guurka calow gabaygaasina waa jirayoo salaan sida aada soo sheegtay iyo reerkii ula xididka ahaa ee reer dhooble markii dambe khilaaf baa soo kala dhex galay khilaafkaas dhinacba waxbuu tirsanayey salaan wuxuu tirsanayey inuu xoolo badan iyo yarad badan bixiyey laakiin maamuuskii iyo sharaftii uu mudnaa aan la marin waa kii gabay kale ku sheegaya lahaa meeshan cali oo waalidkii lagu cisaynaynin nin isoo cawaansaday halkaan cidiba eegaynin meeshii isaaq wada cajabay ceebtii iga raacday markaa waa cabatinkaasi wuxuu salka ku hayey inuu sharafkii iyo qiimihii uu lahaa la marin waayey xoolo doora iyo adduun badanna uu bixiyey salaan isagu sidaas wax u tirsanayay dhinaca kale waxyaabo badan yaa iyaguna tirsanaya oo xataa waxaaba la sheegaa mar safar badan oo berbere tegey inuu gacanta salaan ku baxay
na waa la sheegaa adigu dhinacaasina waxyaabo badan iyaguna isu geysteen khilaaf sidaasa yaa jiray iyadoo taasi jirtaabaa salaan isagoo markaa cadan ku maqan soo degayo dabeetana safar badan isagoo sita buu xagga nugaal oo markaa aftiyaashii jireen u kacay dabeetana safarkii iyo adduunkiibu halkaa la tegayo qolada nugaaleedna waa ogaayeen abtigii iyo aftiyaa way ogaayeen reerkii la xididkaa wixii kala gaadhay dabeetana safarkiibaa si wacan loogu iibshay oo halkaas isagoo muddo jooga yaa reerkiisii iyo xididkii ka war hela dabeetna maxamed dhooble oo inanta walaalkeeda yaa la soo diray oo la yidhi salaan u tagoo dee u sheeg in arrintii laga heshiiyey oo go-aan aynu qaadanay salaan inaynu faraha ka qaadna salaanna war kaluu hayaa oo meeshaa haddii uu tago inaan dee aan arrintu ay xumaanayso war abuu hayaa dabeedna maxamed dhooble u yimi oo wuxuu yidhi salaano haddaanu dee reer dhooble iyo guud ahaanba reerkii nahay dee iswaraysanayo waxaanu go-aansanay arrintaadii in faraha laga qaado oo reerkaagii aada u timaado heshiis iyo wanaagna xagga yagii aanu ku dhamayno oo aan waxba lagu raacin salaanna wuxu warkaa ka duwan yaan maxamed u hayaa dabeetna waa soo kaxeeyey oo markaasuu gabaya mariyey wuxuu ihi hadal waa gun iyo maxamedow gari iyo maahmaahe gabayna waan aqaano ma jiran in igu gaadhaaye kambalkaan gabool lahay tashigan igu galoolaaday hubka aan ku gaadhnahay hurdada gama a lay diiday goraanka leylkaan sidii galowga yeedhaayo galofololka iyo ciilku waa gaydhi laybadaye xilku kuma gubane xaajadii kula gudboonaatay kol haddaanay garankaaga jirin aniga goohaygu inankaa iskaga gaabsadaa go-a ee roonayde caawana af lama gaagaxshee maqal guhaadayda galbis hadduu u kici inan layaal guushi waa qurux geeraaro faras buu qabtaa geeya maan ma leh gaadada sitaac laga luliyo qoorxidh lagu gaadhay xakamaa guduud kale bustaa gocon ku laalaado hadba neefi soo galay waxaan guudka kaga laalay waagaan fardaha geynayey gurayey kii xoog leh waagaan fardaha geynayey gurayey kii xoog leh geelayga waagaan sidii guluf u qaadaayey lo-da waayadan gadayay ee adhiga goynaayey jilaal gardaadsaday abaar gaaja idin hayso gaadiidka moodka ah waxaan kugu gargaaraayey waagaan xigaaladay ka go-ay gacaladaan haystay waagaan xigaaladay ka go-ay gacaladaan waaye galad eebbe weeye waxaan goonji idi daajay mugga inaanay godol yeelanayn waa hal soo gudhaye kama galabsan inuu reer tolkaa gada libtaydii guulkii kal hore way sogeen gudafaqiini kadab markii a u wada baxdeen guulcadiyo wiilba gidigiinba waa tii aad tashiga gees ka qabateen maxaad ii gorgorinsow raggii ii guntaday mihid afartaasi waa iga gujay gabidhac ma u diiday googoynta iguma baxeegeeda ma u waaba sida galaha roobka iyo badoo guuxi ma u reemay gabay kalena waa u noqonayaa geli calooshaada inaanan goosan karin naaga kale go-e haddaad mooday qajeelaa gayaanbadan yahe waxaan idii gaatay ama goonyadaydii u horay geeda sare laace gediga haddaan idi warsaday gobi iyo caadkeedi kol haddaanay garawshiyo xidid gumaradeed joogin ismaba gaadhno oo waxaynu nahay gaalo iyo rum waa geeriday waxaan ciid igu gadoomaayey gafna ha igu noqotay haddii goonyo la isiiyo anaan gabadiintiinii tagayn gurigii reer dhooble qoftii a gacal ahaydeen haddii aad garatad iisoo rar haddii kale ha guursado raggii guga la sheegay oo nin baa yidhi war ninkii salaan soo noqon maayo 50 halaad iga qaato inanta isiiya kaana waa maqlay salaan qoftii a gacal ahaydeen haddii aad garatad iisoo rar haddii kale ha guursado raggii guga la sheegay dabadeedna guul waxay dhashiyo godobta aan dhowro waayahay waxaan filayaa dee arrinkaa isaga ah ee guurka iyo haddii baydankeeda baabkii dhalinyarada halkaas aynu kaga baxaynaa waxaan jecelahay inagoo mawaadiicda faraha badan ee gabayadiisu isugu jiraan aan soo koobi karin inaynu raacino gabay kale oo isagana uu kaga hadlayay xagga abaalka oo ninku dee wuxuu ahaa nin markay usoo marto cid wax tari kara hase yeeshee dee kolley abaal nin gala waa la ogyahay baa la laakiin nin guda lama oga marka bal ninkaasina dhinaca abaalka iyo waxqabadka wixii uu ka yidhi
gabay baa igu maqaalo ah aan wardhagoodka ku haya abaalaawe bal kaasina siduu ku yimi iyo tixihiisii hoo yuusuf naga dhargeysna kaasina wuxuu ku yimi nin salaan adeer u ahaayo malaa markii dambe magacanaabu la baxaya ayuu dhowr jeer ka hawlgalay arrintiisa mar malaa cadan lagu xidhay waa ka hawlgalayo waa ka siidaayay xabsigii mar kale ninkaas isagoo inan la yeelaba gacantiisa nin ku baxayo dabadeedna reerkiibaa xidhay oo salaan baa ka hawlgalayoo guuto dhan ayuu ku saaray oo ninkii waa lasoo furtay mar saddexaad gabadh u doonanayd baa nima isxigaan kala baxayoo dabeetana taana salaan baa ka hawlgalay oo ninkiina waa ka soo reebay oo nin qasaal la odhan jiray waa ka soo reebay ninkaasoo abaalo badan uu u galay oo uu dee ka filayey dee waxtar iyo wanaag ayaa beri dambe salaan nairobi tegi ninkii oo shaqo fiican haysto oo aada u ladan ayaa halkii soo dhaweyn iyo waxtar uu ka eegayey hadalla aan meesha qaban ku yidhi oo sida war odagii afmishaarka ahaa ee xaggaa ka gebyi jiray ma halkan uula soo tallaabay wuxuu xaggaa u ka shubi jiray iyo hadalla noocaasa ayuu ku yidhi dabeedna gabaygan ayuu mariyey oo goobihii iyo marxaladihii uu ninkaa la soo maray ayuu kaga hadlaya wuxuu yidhi qaylada xaduurkii ninkay xaraqday laabtaydu xusulduubka orodkii ninkan dhab ugu xuurtoobay guuraa xambaarada ninkii xagarku ii jeexay jilabkii xadhaadhaa ninkaan ugu xajiimooday waryaa habar xabuushay ninkii xiidka la imooday guutada xabaaska ah sidii xamashi duulaana xaddigaa ogeydee ninkaan xaadir uga yeelay xildhibaanka nuux maxamedkan kala xadhkaynayey xidhkii odaya dheerood maalintii markii ragisxiniin taaftay xaraamigii olol markuu xilafurka u siiyey waataan u xuubsaday sidii xuurta baalka lehe xarbigii shisheeyaha ninkaan xeebashada diiday waxba yaanu xeerka iyo marin xoolana isiini xaashe inin libinkaa xistiyey xumihi waa yaabe dumarkuba xublada foosha way xanaf wareeraane balse inay xusuus daran yihiin xaylka kale moogi dooyuu xawaal uma socdaan xeelli karaameede farasna wuxuu xakamadiid noqdaa koluu xaraamaaye marka uu xanan yar leeyahay buu xolad hulaaqaaye marka uu xanan yar leeyahay buu xolad hulaaqaaye cidluun baan xayuugnahay sidii xunshadii gubane xegada haddaan dhalin lahaa xoogmadaan ahaye xerbeegti murantaa gartay xeelli hadashaaye xubin rag isku waajahay hadday xayga ka caddaato afku wuxuu la xoog yahay magliga xawda kaa jira ragun baan xisaabtana aqoon xiina loo diray xikaayo iyo baanisaba anaan xarafi seegaynin nin xukaantu wada naadisoo xaadsadaan ahay xafiiskii magaalada wixii xaalad iga gaadhay xabsigii cadaawaha ninkaan xaalin uga saaray xoolaha mugay timi ninkaan xulayay geelayga waxba yaanu xeerka i marin xoolana isiini xaashee nin libinkaa xistay xumihi waya xoontii walaala ahayd xodayadii faayo xaraga qaadadkiisuu markay xiita ololeysay dartiis baan xanaaq ugu luriyey xaasidkii buqule cabdigii xaruuriga ahaa kama xishoonayni xawdheerta goortan la baxay xaashibay garanne bahreerdood xigtay ku ahayd kumase xaalayne qasaalkii xadiye kaa dhaca xinif lahaydeene bahreerdood xigtay ku ahayd kumase xaalayne hadduu xaashi curadkii ahaa maba xil saarayne xaaskiisa waatuu u raray xididkii koorjaane xijirtaa wafaadina markay xuurtu kor u yeedhay xisti inaanan kaa gelin tulkaan xogina moogayne xasan nuuro way marag markii ragisu xaydnaaye waxba yaanad xeerka iyo marin xoolana isiine xaashe inin libinkaa xistay xumihi waya nimankaanu xanaanada lahayn xaawe iyo aadan xigaale aan tabcaday reer jibriil xarawigii raaciye wayadan xayaad lama kaftimin xaashir nololeede qasaalkii xadiye kaa dhacaa xinif lahaydeene xuska dhalasho waa kula sinaa xilase kaa yeeliye xiraaga goortan la dhacay xaasil kibirkii ogoobay xidaayadee dartaa kuma xorowdeen ninkaygii xortaba kaa dhigaad ximi tidhaahdaaye xidaar baa khalqigu u yaqaan xeeb haddaan tage xamdigaaba lay wada naqa xidaar baa khalqigu ii yaqaan xan iyo maamuuse xamdigaaba lay wada naqaa xeeb haddaan tage sida xayska roobka nafluu ii xidigayaay oo duba xirsiga reerka way bala xijaabtaaye haddii aniga lay xidha rabbaa xugunkii meel yiille adigoo xabeebsaday intaad kun igu xaydaanto waxba yaanad xeerka ii marin xoogna ii furanne xaashe inin libinkaa xistay xumihi waya ixtifaalada qoneed nin ragii waa xasiliyaay xubbigaan idii dhaqanayaa igu xujayseene allayle xurmo haddii aan lahaa way igu xilateene ragba kii aad xanaanaysaa kuu xasaas colehe xawlalmaridada wejiga xididadays oogay
fadha xidhiirsamay lafa xoobku ka idlaaday jidhkayga xariirta u ekaa xaaluf quruxdii haddun baan xaraarugay sidii xamil gabawriyaalle xafta waxay idin laba listaan xooxdii la imaaliye ifkasta intaynu xaynahay haddaynu xiise kala weynay aakhira rabbaa ina xukumi xaqa inoo yaalle adigaanse nafsiga kugu xawilay xaynka kuu sudhane xaggaygii wax dhigo haatan waan kaa xaliil jabay xaggaygii wax dhigo haatan waan kaa xaliil jabay ilaahu qaadir arrinkaasi waxa weeye odaygu dee meel adag bay ninkaa isla gaadheen go-aankiisiina waa muujiyey waa yahay abaal la-aantii iyo qof wax la taro oo waxbaba iyuu abaal celine ammaan laga waayey dhibtiisuu leeyahay taana aan intaa kaga baxo waxaa jira arrin kale oo aan isla rabo inaan gabayadiisa ka soo qaato yuusufow waa arrin hadeerto dadkeenna iyo dalkeenna aafeeyey waxa weeye waa arrin laandheere la yidhaahdo waxaa jira dee innaga laandheeraa waa laynoo sheego ilaah bay inoo sheego inaman akramakum cinda allaahi adqaakum baa laynayay ka inoogu laandheere waa inaman akramakum weye cinda allaahi adqaakum waa sidaynu cabsida ilaahay ugu kala dhownahay u kala laandheernahay ta runtahay waa taa laakiin tu kalaa jirto oo laabta la isriixo oo ama rag ha ahaado ama dumar ha la ahaadee la yidhaahdo sifiiba hadda laga dhigtay oo la yidhaahdo maanoo reer hebela marka waxa weeye ninkaa odayga ahay salaan waxaan filayaa sida wardhigoodka aan ku hayo beri baa laabta nin u taabtay oo yidhi anoo ina libaxsan ka taabta ah ayuunbaad meelaha kan salaanu iga hadba gaba yar iyo wax iga huntufanaysaa waa kaa odaygu halkaa aada buu isu difaacay oo wuxuu yidhi oday dunidiiba taad ogeyd ma aha aduunba iscajabiye meeshiiba ada nin ingiriis la yidhaahdaa dhulkii yimiyo haddaad laandheere ahayd iyo haddaad laangaab ahayd waa deerto waxay maxmeed baynu naho waa layna haystaa oo dee dalkiiba laynaga qabsay seed cawid nin la oran jiray kollay dee magacyadaa iyo odayadaa adaa xagga burco ku yar dhawaayo aad baad u wada garanaysaa bal hadda gabaygaa isaga ahaa wixii uu halkaa salaan ka yidhi bal hadda isagana laandheeraha iyo isufaankaa calow waa runtaaye bahalkaa laandheere ahi dee horena waa u jiray maantana waa taagan yihi inkasta oo quruxdiisu ku wanaagsanaan lahayd islaamku rasuulkeeni suubana caleyhi salaatu wasalaam wuxuu i guurka badiya si aan qiyaamaha ummadaha kale aynu uga badanno oo aan idinku faano baasha laandheernimada lahaa meesha wax ka taraysa horta waa halkaasa ugu fiicnaan lahayd muslim noqono qiyaamaha aynu ummadaha kale ka badanno laandheernimada la sheegaya macnaheedu halkaasu ku qurux badna laakiin ummadihii kale iyo caalamkii kale dadkii kale ka batay wax tara laakiin maanta meel aan ahayn aanay ku jirin baynu ka baadhayna ninkaa la odhan jiray seed cawad iyo salaan waxoogaa gabayaabay isu celiyeen inkastoo gabayada badankoodu salaan lahaa oo seed kuwiisu koobnaayeen ka u dambeeyun baynu ka qaadanaynaay oo ugu cuslaa laakiin tusaale kuwa kalena aan ka bixine geel baa la qaado ila waa dee dhaqankii soomaalida jiri jiray geelii baa dhulbahantaa qaaday dabeetna ergaa ka daba tagtay xaaji xasan fiqi iyo salaan iyo niman badan oo culus yaa ergada ka mid ahaa ergadii baa sidii la doonayey loo ajiibi waayeyo loo soo joogsan waayo salaan baa geeraar mariyey uu leeyahay waryaaye de waa isnaqaanaayo maalinba hogushu meel bay martaaye waa intaasoo dee daniba nookin keentaaye ka daaya sidaa u dhaga adaygaysa nafsi waa cirir jaano waa cadceedda wareegto caradaanu degaynay cirku waa ka da-a cagtuna waa socotaa casiis waa idi keeni waa cad goosan naqaan abtiyaal nacisayo geela noo cesha maanta geeraarkaasu mari geeli loo diid laakiin gohaankiisi waa kacayo sidii uu sheegayey yay u dhacday dhowr sanaan rooba u har yeelin dabeetna waxay isku soo shubeen deegaankii ay geela ka qaadeen salaan malaa raggii uu filayay ee dee meesha berigii maqli waaye ee sida xun u galay ayaa rag isku gudbay oo yidhi aniga hebel laga dhaafi maayo hebel inan buu qabaayo hebel inan baa dhashay oo dee waa dad dhaleeye ah oo dee sinta isku haya markaana gabay ayuu mariyey iyaba nama tixgelin reer warsame taaftankii guga e markii aan tafaafulay ilaahay taqabal ii yeeliye tubta waxa kusoo riday xaq iyo taymka buuxsamay
nin shisheeye taakula hadduu tara ka reebaayo tunka faarax qodax baa ku siday tuugse madaxiiye hadduu taagti kibir taagan yahay tooci dhaxa weyniba gabaygaasu mariyey oo wuxuu u duur xulayaa raggan iminka isku gudbay rag hore oo ku xidhnaa nimo shisheeye ah oo meel xun ku dambeeyey ayuu leeyahy waryaayahe ka daaye dabadeetana saad cawad ayaa wuxuu ka xanaaqay nimankaa uu magacaabo ee faarax qodax iyo taagti kibir oo ducaalo cilmiya iyo ayuu ka xanaaqay dee saad bay labadaba isxigaan saad markaa gabay u laandheeranimo ku sheegayo ayuu mariyey anigu dheega nuux baana iyo dhamacda waaweyne hadba dhumuqyadaydaan dayaa dhiig sidaan galaye kol haddaanu dhiig shalaalaxla iyo dhagar la-aanaynin dadkaa iga dhafoor jilicsanaa dhabarka muutuujo allahayow salaan dhiiranaa dhegeg bay dilay salaan baa isna kusoo noqday oo gabay kale mariyo rag hore oo xagga seed loo tirinayo reerkiisa soo qaaday nimayow dadkuba ways qabtaa kala qaboobaaye ama wuxuu ku kala qaanbaxa qaayi maqan dhaare qaabkii rabjaan loo diliyo qadafyo noo raacay qalle inaan ka maro tii horean qabay xasuusteedi dhulkan qodayo qaashkiiyo sartan qawda ciil ku hayo qafladan cidada yuururiyo qabar la-aantiina wallahi qaabkan la isugu rogmaday qolaba kay hayso qabka iyagu allow kala fogaa waa u qarsanayaa seed baa dabeete haddana isna soo noqday isagoo weli laandheeranimadii ka hadlaya waan kugu gab odhan sida libaax geelu soo dhacaye quyar baa ku googoyn lahaa gacan ma taagteeni geesaaska dumarkaan ka baqay guriga ii dhow markaasuu gabaygan salaan marinaya waayo tuska iyo dunida uu kaga hadlayo iyo isticmaalka ingiriisku siduu rag u gala iyo reerii laandheeraha ku faani jiray siday maanta yihiin bari iyo galbeedba wuxuu uhi seedow garaad ma leh ninkii gabay bilaabaaye gankaa tahay dembigu waa gubaa waanad garanayne inaad golaba ila loolantaa kuu gar ma ahayn gobka maxan gulaankii ka baxay garabyadii tuure isha geel caseeiyo gar adag mabacda gaagaaban gabi bari guneed iyo xadeed gacanka beer weyso geedkii fardaha beeri jiray gura waqooyoo dhan gabiilkii shishooraad ogeed galangal weeyaan gaaskii suweyn wuxuu ku dhacay golol raggii yiile suweyn waa ninkii watay ciidankii ugu horreeyey ay daraawiish isku galeen haradhiig yaa suweyn la odhan jira markii dambana suweyn cawar buu la baxa gaaskii suweyn wuxuu ku dhacay golol raggii yiile haddaan xadhigu gelin keenadiid laguma giijeene nuurgaabi sida gooni daaq gooni loo mudhaye gamaankuu rag ugu faani jiriyo garab xigaal waayi gabagoobi buu taagan yahay gacal la-aaneede garb baa lagaga dhigay bahararsame inay gumoobaane nimankii garaad cali lahaa giirta dabadeede barkadna gawsa weyniyo ka carar godankii caymeede lama gala ganuunihii burco geela loo qodaye gaardiga hindoo baa xukumo gobabkii beereede sidii loo gandiyey yeesif waa garab rarteeyaaye wax sanbuur gabaabsiiyey markuu xaajigii go-aye gashigeed ma qabin caalinkii gaydha loo dilaye reer aadan wuxuu goonjii waday mahayo gaadiide gudcurkii dhoweyd bay samane gabagabeeyeene gujadii cibraan lagu dhuftaan soo garwaaqsadaye guuraha cawaalaan hurdada gaadh habeen ladin garbay qabatay habar yoonistii guurtida ahayde iskaga gaage gaaroodiga goray ku beerayde waxay gudubi uga sii qaxeen geli colaade ciidagale gashxoor iyo madago gubadadii hawde isgadhoorintii iyo lawaaguba kufaankii gafku ku hadli jiray reer mataan waa gabanayaaye gilgili maayo guuleed suldaan galaxi caanood gilgili maayo guuleed suldaan galaxi caanoode guufkii berbere reer subeer ganacsigii waah goga subaga baarada gagiban gocayadii buuxday goorahan ma wadin reer xareed gorood madowdii raggii adhiga gooshaashin jiray gaasir sabankiiye gudabiirsi iyo ciisihii goocin jiray waayi waxaa sadada loo geynayaa ina garaadnaash madfaca gawle gooraya ayaan galayda yeedhaysa diyaaradahan gawliya waxeer samada guuxaaye gaaladan lasoo sheegayu guraya reeryowgu waataan guntoodii hubsaday inaanay guurayn gare laban galaadi iyo dhudub goodi iyo faafan garduun iyo abxaar baa xukumo gaankii xodayoode gabiilkii adduunkaba la saar gadowga miisaane guubaabo iyo gacan haddii aad wax ugu goynayso ama geesi tahay wiil nafsiyaan laga gayoonayni waa goosa nuux maxamedkii agacal ahaydeene wax gadaanka loo suray tolkaa gorofkii caydha haddaad wiil hoog tahay wiil baas tahay wax taraya
dee reerkii miyun hoos u eg waa sidaa gubaabo iyo gacan haddii aad wax ugu goynayso ama geesi tahay wiil nabsiyaan laga gayoonayn waa goosa nuux maxamed kaaga calahaydeene wax gadaanka loo suray tolkaa goroftii caydheede adduunyadan gabaabsaday intaad godolka eegeyso naftaadaad gunaanadi lahayd geerida u dhowe maxaad aniga iga gowracdaa la isba soo gaadhiyo maxaad aniga iga gowracdaa la isba soo gaadhi mar haddii dushaba laynaga qabsaday maxaad aniga isu kay ruuxaysaa buu yidhi waa yahay yuusufow de hadda muddaynu kusoo jiifnay waxaan filayaa gabayadii odaygana soo qaadqaadisteedii haddeer gebagabay nagaga dhowdahay waxaan kusoo gebagabaynayaa cajaladii maqalka ahayd ee aynu buuggeenna ku laraynay waxaa jirta iminka bulshadeenii yaryarayd aan lahaa markii hore 60% bay tahay dhalinyaradeedu in tahriib wax la yidhaahdo lagu saliday tahriibtaasoo ah dhoof aanad wax sharci ah iyo wax sahaya midna u sidan ilaa Ethiopia ilaa Sudan ilaa Libya ayay maanta waran yihiin ilaahay ha ururiyo laakiin waa arrin dhib badan iyo xanuun badan badahaana waa lagu socday qaarna hadeer burcad badeed bayba noqdeen oo laash bay saaran yihiin kuwa kalena waaba isqarxin baa looga baqayaa waxaan jecelahay inaynu cajaladeenni ku soo ururino gabay uu lahaa ninka la yidhaahdo salaan carabey wakti ay dalyaqaanimo u raaceen ninkii la odhan jiray Lord Dalamiye oo aan filayo inuu ahaa ninkii Nairobi iyo aasaaskeeda rag badan baa halka ka sii raacay wax ciidanimo ku raacay iyo wax dalyaqaanimo ku raacay oo Nairobi-daana waxaan maqlay inta center of the town ka Soomaali baa lahayd laakiin si yar baa markii dambe dadkan Soomaalida markii la arkayna wax la yaani halka inagu dhaafin dadka kale dhulkooda ay ku qabsanayaan oo halkii awrkoodu gaadhoba iyaga leh marka si kastaba ha noqotee bal gabayga uu salaan kaga hadlayay xanuunka dhoofka waliba markaan aad ku sii yar faahfaahiyo waxa igu maqaalaa mar uu soo noqday isagoo dib badan soo maray ayaa nimanay tolahaayeen yidhaahdeen deena sii sooriyadii wixii uu heli karayay ama hanan karayay ayuu wax ka siiyey war nagala tagbaaliyay waxaas wax ma aha haddaad waxna siinay waxna sii gabaygaa taasaa ku kalifto halkaasuu gabay ka mariyey bal waxaan jecelahay kaa isaga ah inaad cajaladii maanta inoogu soo ururiso waa kuu dhiibay cali barkale waad mahadsan tahay tan sidaa aad u sheegtay dee adaa dhameeyey ninkaa Lord Dalamiye la odhan jiray oo halkan yimi oo sawaaxil u kacayay ayaa rag badani raaceen wax dalyaqaan u raacay wax si kale u raacaba raggaa salaan baa kamid ahaayoo dee maadaama afafka yaqaanay kolleyba isaga sidaasaa uu muhim u noqday marka Nairobi bay tageen Nairobi markaa waa la aasaasayay oo waa markii la degayay waxaan maqlay markii ay ayaama joogeen buu ku war meeshan waxay noqonaysaa meel caasimad ah aan dhul faras magaalaha idka siiyo ragii qaarro waa yeelan qaarro waxay yiraahdeen war iska noqonayna wixii aad noo heli karaysaa shaqadayadii nasi markii uu soo noqday ayaa salaan dee maqnaashiya saa la ogaayo dee ragay tolahaaye wax weydiiyeen nin la oran jiray xaajududu waa isxigeen yaa dabeetana uu xoogaa siiyay xaajududa soo celiyay oo yiri war waxaan ka qaadan mayno kaama sugayne oo dabeetana markaasuu gabaygan mariyay oo sawir kaga bixinayo dhibtii uu maray oo malaha meelahan Ethiopia iyo meelo dhaxay sii mareena ay jiidaal badan iyo jidkoo loo galay iyo hawl badan ay la kulmeen iyo marka dambana xaaskii iyo dee reerkii iyo xaggaa laga sugayo oo dee wixii uu sidayna xagga dee xaggaana looga fadhiyo wuxuu nin sirtayda ogay aadana usadii ma moodeene xaaskayga kama saafureen soor haddaan qabe sahayna kalama iman dalamiyihii saaqidka ahaaye balse sursuurahan soo maray baan kuu sawiraya su dhow webiga saalada hanfiga salayi xiifiinta aydii sadaadaha lahayd tirin sirkii oonka sakatiga cabsida weerarkiina la ku sii daayey goortii ilaah baa sahlaya samadu qiiqowday naftaba suuradda mac lagama qabin sina dharaartaasi seeftii amxaarada raggii saaburaanahay suudhii badiyaba isku mida saacaddii badare sursurihii waxaa ugu daraa surinkii loo yaadi saantii dhaqaaqdaa haddii ay socod ku dheeraato inaanay sooba noqon iyo eebehen inuu salaameeyo labaday u kala socan tahay silacsan waa jiif Soomaali iyo Carab intii socoto loo gaaro sunbay noqotay oo lacag ma jiro cid isa siisaay sabab lagaba raba dunidan ka isaadadii tahay saxigii rasuulkaba mar baa loo salugtay
dad badan nimaanu wada saa'iro iyo malihi saaxiibe dhalintaanu seeraa lahayn suxubadii baashi sabaw ina caraaliya raggaad saa u garanayso xasankii sirrigayga yilseedihii iyo laabta siciidkii aan cidiloodin jirin seeyo dirirteeda sudcigiiyo ayaan kuba horuu saamigu u dhacay sikhinimada cali qaajihiisadii iyo maartaabay saldhigiisa gabay meel hadduu sinuu abbaaraayo sinjigu waa cajabe cabdaan lagaga siiyeene surmadheerlayaashaa kaciyo samay intii qaaday safkiina buraaliya lahaa suudi iyo baashe sarkaalkii magaalada kuwan sacabka leefsiiyey iyagaba salaan uma lahaan salow la-aaneed cid haddaan soo dohin waalidkii siday arwaaxayga sida laga warramay reerka iyaga silaca xaaskayga sinta tii isaarti iyo caway soo socda oo nool waxaan suuro iga yeelanayn soocintaa ba-ane waa lay sugayaa tolow samir hala yeesho